السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل إيو برنامج كنا كهنا جدلكن هويو وحين لا سعوديين ولكن مواد كده دلك جعل هالجماعة دلكن هويو ومحمد أحمد صور دواد دماتين صورورة اسكو سو ياعة هدو قلب كين سو قارو قفل با وموادنا أو صوماليات أو موادنا دو كونتي وحنا كعصرنا فلان سكريبت يلف صار هي الشرط الأوبدي وحكامش بتوقع أكثر قيمة كماها موادين marka maanta insha Allah barnaamijkeena waxaanu diirada saarayna insha Allah ku eegi doonaa xukuumadda nabadda nolol waxay dalka qabatay guulaha weyn ay gaadhay 26 Juurmay ayaanta xornimada dalkeena hooyo ee gobolada waqooyi iyo insha Allah isbuuca xorriyadda inuu ku guda jirno marka barnaamijkan qof walba markuu soo gaaro hasii shir gareeyo insha Allah dadweynaha ha gaarsiiyo dowladdeena hadda barakeysan ee nabadda nolol waa naxariis waa nabadgelyo waa nabad وكلمة سيناء اسكو درسين لبدا ان wax badan bayna ka turjumaysaa wax badan bay u taagan tahay nabad kelimo taagna naxariis bay u taagan tahay nabadgelyo u taagan tahay nabad bay u taagan tahay wax ka soo fiican bay u taagan tahay bashbash barwaaqo bay u taagan tahay marka maanta dalkeen wax maraya meel fiican farmaajiyo khayr iyo tiimkiisa nabad nolol iyo wasiirada baarlamaanka dhamaan dalku maanta macna meel fiican bay gaarsiiyeen horumar fiican bay gaarsiiyeen hadda micnaha waxaanu micnaha tiirka koowaad ee ka dhiganaynaa barnaamijka islaqaan dalkaaga dib u dhiso madaxweynuhu uu furay 2 sano ka hor hadda meel fiican gabagabo marayaan tiyaatarka qaranka waad aragteen gooraan kubadda cagta waad aragteen wasaaradda warfaafinta waad aragteen wasaaradda maaliyadda waad aragteen wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta waad aragteen micnaha dalku dowladani wax badan bay ka qabatay xagga arrimaha dibadda gudaha dalku aad buu dhistay dalku meel fiican buu maraya khayr iyo farmaajo madaxda dalka Allah sharaf Allah dhawr dalku wax badan bay ka qabteen barnaamij islaaqaana bay bilaabeen maktabada qaranka waa u jeedaan dalkeenu marka maanta wuxuu maraya meel fiican oo caan kula jeel qaadaya dib baa loo dhisaya oo meeshii rasaas iyo buuq iyo siyaac iyo kala yaac ahayd hadir waa nabad dalku waa nabad hadir dalka wuxuu ku jiraa nabad buuxda nabad baa naas nuuga leh nabad wax ka macaan male nabad baa ina deeqda nabad baa dalka inagoo ina deeqda hadii nabad noqono caalamka wuxuu noqonaa wadamada ugu qanisan dhowr baa ahaatay ama dhan shida la ahaato ama dhan saliid ceerin ahaato ama dhan beeraha ahaato ama dhan xagga badda ha ahaato wuxuu noqonaynaa Ilaahay macdanta ahaato wuxuu noqonaynaa dal qani oo hodana hadda sida wadamada jeerka kale cunaa waxa sicileen kaga tageynaa iyo wadamada khaliijka iyagu waa saxare khaliijka oo jeedaan waa saxare saxaroodii bay yimaadeen oo micnaha aaminin oo dalkoodii bay micnaha wax ka dhigteen marka inaga maanta waxa loo baahan yahay dalkeena inaan wax ka dhigano inaan noqono muwaadin dhaba dalkiisa jecel oo dalkiisa aaminsan horta ko waxa laga rabaa aaminaanta dalkeena hooyo inaan noqono inagu muwaadin aaminsan dalkiisa hooyo ninaan dal aan lahayn joogo waa dareen ku joog dal aan dalkaaga ahayn hadda iska joogtid dareen baa ku joogta anoo ka macnaha baa ila mid tahay oo dareen baa ku joogaanba laakiin wax kasta waxa inoo dhaamo oo inoo fiican oo ku laawanayna waa dalkeena hooyo nin walba dalkiisii macnaha soo macnaha uga shaqeyn lahaa nabadiisa nabadgelyadiisa horumarkiisa isdhexgalkiisa ha u diyaar garoobo jiilka dhalinyaradu waxaanu leenahay dhalinyaro iyaga wax bedeli kara dalkan maanta iyaga wax ka bedeli kara 78 dalkan maanta iyaga wax ka bedeli kara xooga dalka Soomaaliyeed waa idinka iskaxa dalka Soomaaliyeed waa idinka muruqi dalka Soomaaliyeed waa idinka aqoonyahankii wax garatay dalka waa idinka meel kale laga raadin maayo dhalinyarada maanta dalka meel gaarsiin karta barnaamijkeena dib ugu soo laabanay maanta insha Allah waa 26 Juun waa maalinta xornimada qaateen gobolada waqooyi dalku meel fiican buu maraya dowladda nabad iyo nabadgelyo iyo naxariis korkeeda ahaatay waa dowlad wax weeye wax badan qabatay oo wax badan ay dalka ka qabatay madaxda qaranka Allah noo dhooro madaxweyne farmaajo wax badan dalka ka qabtay iyo ra'iisul wasaarihiisu siista fiican bay ku wadaan hoggaan fiican oo isfikrada oo micnaha ay wada tashiya wax lagu wada dalku maanta meel fiican buu maraya hadir waa jeedaan garoonka weynaha ay kubadda cagta ee garoonka kubadda ciyaaraha maasha Allah sida loo qarabay sida loo dhisay teetalka caalamka garoomada caalamka kale teetalkiisu maanta leeyahay haysta istaantarka caalamka kale macnaha maanta saaran wasaaradda maanta kale waa aragtay wasaaraddan warfaafinta kale maaliyadda kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta kale
هوشة si fiican baa loo dhisay tiyaatarkii qaranka madbacadii qaranka iyo tiyaatarkii qaranka si tiyaatarkii qaranka si loo dhisay artay sidoo quruxda badan oo qaayaha iyo qiimaha uu leeyahay kuraasta kaliya oo taala bal ka sheekay qarashka la geliyay kuraasta kaliya oo taala sida loo dhisay sida labada kale loogu yeeray kan buluuga iyo kan casaaga wad u jeeda dalka wuxuu u baahan yahay horumar dalka wuxuu u baahan yahay horumar socod farmaajo khayr dalka horumar bay gaarsiiyeen meel fiican bay marsiinayaan wadadii toosneed ee soo dib ugu soo laaban lahayd caalamka bay hayaan dadkan meelaha kala qeyriyay oo iska qalqeynay waxaanu leenahay dalkan idinku idima baahna halkiina jooga iska qalqeeriya dalka faraha kala bax nimankan meelaha ka xiimay ka qeyrinayo Soomaali iyo Jawaan iyo CC warsamay waxaanu leenahay adeer dalkan qeylo iyo buuq uma baahna dalkan wuxuu u baahan yahay nabadgelyo wuxuu u baahan yahay ilaalintiisa wuxuu u baahan yahay sharaftiisa dalkan maanta wuxuu marayaa meel xasaasi ah caalamka wuxuu la qaybsanayna maanta caalamka wuxuu la qaybsanay maanta weynu muuqana caalamka waa ka muuqana nabadgelyo nahay macnaa dalku uu dhismaya dalku hadda waa daaraha dhaadheer iyo saraha dhaadheer xeebta liido iyo meelaha ka dhisan wada jeeda dalkan maanta wuxuu baahay dib dhis in dib loo dhiso u baahay in dib loo celiyo dib loo burburiyo qoladii 90koodii waxaa leenahay naga raali haada dalkan dib u noqon maayo hore u soconaya dalkan insha Allah wuu soconayaa meel fiican buu gaarayaa nabad buuxdo oo kaamil baan Soomaaliya dhan oo rajeynayna dalku inuu meel fiican gaaro oo micnaha noqdo dal la isku aamini karo oo nabadgelyo buuxdo baan Ilaahay ka baryayna tubtii buu hayaa madaxda qaranku tabtii bay hayaan wadadii bay hayaan dariiqii bay hayaan farmaajo khayr meel fiican bay wax marsiinayaan warheen maanta madax baynu haysanaa dad inoo naxariisanay bay haysanaa madax inoo diir naxaysa baynu haysanaa madax micnaha xanuunkeena maanta dareemay baynu haysanaa madaxdana adeecno in la shaqeeyno dalkeenana inuu aamino qof walba wuxuu ku yahay waa dalkiisa aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ilaahu dalka noo hagaaj ilaahu ummadda kala jirtan ilaahu sukeed ilaahu qurubta isku soo haday ilaahu waxaan ka beenay bashir iyo barwaaqo inuu tarbiyan ka beenay ilaahu wadawada caalamka micnaha meesha joogaan iyo meel ka fiican baan ka beenay ilaahu caalamka waxa ugu maray nabad in xariis baan caalamka ugu maray wixii muslimiin oo asliya Allah dhib ka saar وعلى جمعة إلهي أنا أقبله صلاة الدعاء إن شاء الله وحلبه وأنا إلهي أنا أقبله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوماليا هنولاتو هوارتو عالم كنا هلا شاقاتو حنا هلا قيساتو قربنا ولين هاي رئيس وزراء دلك حسن علي خيري يمدحوينها قرنكا محمد عبد الله فرماجو والسلامة